shirkadaha ugu waaweyn ee dalkan jooga hal shilin ma ogola dawladda inay siiyaan lacagtina xataa iyadoo electronic ay samaysteen biyaha iyo korontada waxay nagu qaadatay ilaa 4 fadhi inaan la yeelano midood weli waa murmaysaa laakiin tanbiyuhu waa noo ogolaatay waxaa noo dheer shirkadaha kale deegaanada ka jira hal shilin ma rabaan xataa centerka magaalada inay dhixyaal qurux badan ka dhistaan oo iyagu ay leeyihiin oo magaalada qurxiyaan ma rabaan magaalooyin kale waa ka dhistaan shirkadaha halkaana waxay degaan guryo xun oo shidaabay degaan haddii u tagto waxay ku oranayaan laaluush qaada hal gaar ah ku gadna naga daashidada taas ku dhahayaan waddankiina ayaa ku ganacsaday ayagana lacag haysta marka istiraatiijiyad baa nooga taala ayagana inaan maarta hawl ka qabsano waxaa kaloo jirta waxyaabahan kaararka iyo gargaarka hay'aduhu ay bixiyaan WFP kaliya degmadan waxay siisaa 14,000 oo kaar oo kaarka ay 60 ku jirto bishii waa 1 milyan iyo xoogaa oo gargaarka aad 1 milyan iyo xoogaa sanadkii waa 12 milyan iyo xoogaa kuwa kale kuma jiraan hay'adaha kale kuma jiraan 12 milyan iyo jafjab ayaa aada degmada gaalkacyo hal hay'ad oo kaliya dhinac hore markana 300 oo GBLG baa ka aada annaga waxaan hadda samaynay hay'adahana kala hadlaynay meesha u soconno in waxaanu ay contribute garayaan dhinaca horumarka si aad u ogaataan meesha u soconno waxaan rabaa inaan idhaahdo capacity gap baa jiray oo maamulka maahan ciidan la'aan kaliya ciidan waa la heli karaa waa run ciidan dawladda hoose u goona ma jiro laakiin haddii la qabto waa la heli karaa haddii la raadiyo ciidan la sameeyo waa la heli karaa marka waxaa jiray capacity gap degmada ah oo aan awoodin inay canshuurihii ka qaadato dadkeeda ama aan la imaanaynin istiraatiijiyad dadka canshuurta looga qaado runtu ragga kama naxiso anigu sidaan aaminsanahay qaybta ugu weyn oo dadka inaan canshuur laga qaadin waxay ahayd istiraatiijiyadda dawladda ay ahayd caqabadaha kale oo ciidamada waxyaabo soo hoosgelaya laakiin aan iraahdo waxyaabaha hadda aan isleenahay oo aan hadday sheegin aad wax ka qabataan sanadaha soo socda ama istiraatiijiyadda qorshaha gashanay 5 sano soo socota waxa kamid ah waxa la transparency waxaan la diriraynaa musuqmaasuqa marka ugu horeeya waxaan sameynay team audit ah oo dad xirfadlayaal ah oo aqoon leh oo maalintii oo dhan wareega akoonada dawladda telefoonada dadku lacagta ku soo dirsan jireen qaarkood ku dirsan jireen marka waxaan ku jirnaa inaanu hawshaas soo afjarno gaari baan sameynay team baan sameynay maalin walba hawl gala oo wareega oo gawaarida hadda rabaan isbaaro u dhigta oo meesha rabaan taga oo audit aan sameynay internal audit kibaan aad u xoojinay dhinacan kalena dadka aan shaqaaleynayno transparency baan u sameynay anigu intaan joogay hal qof baan qaadina centerkaan u qaadan gurigan resource centerkaan intaan joogay baan sameynay inteen ku sameeyno umalanaysa gurigan hadda aan fadhino askar baa seexanaysa 3 bilood ka hor markaan nimid 10 bari baan ku sameynay 10 days walking days aan ku sameynay maalintan ku dhignay marka ninkii aan u qaadanaynay ayaan qofkii aan u qaadanay announce gareynay dawladda speechkeena soo gelinay 48 qof baa u tartantay jaamacad baan u geynay 150 baa siinay jaamacad waxaan idinku noo soo kala saara qof baa noo soo baxay qofkii markuu xafiiska noogu yimid wiiga hore ahay ayaan yaa garanaya qofkan isaan garan weyn markaas waxaan ka shakinay inuu reer Puntland yahay saan warbal dabin noo keenbo qof dabin iyo oday iyo bal noo keen si aan odayga almina u garano odayga waan garanay markaas marka waxay ku tusaysaa inaan transparency sameynayno oo aan maartay wadadaas hayno waxa kaloo jirta waxyaabahan kaararka iyo gargaarka hay'aduhu ay bixiyaan WFP kaliya degmadan waxay siisaa 14,000 oo kaar oo kaarka ay 60 ku jirto bishii waa 1 milyan iyo xoogaa oo gargaarka aad 1 milyan iyo xoogaa sanadkii waa 12 milyan iyo xoogaa kuwa kale kuma jiraan hay'adaha kale kuma jiraan 12 milyan iyo jafjab ayaa aada degmada gaalkacyo hal hay'ad oo kaliya dhinac hore markana 300 oo GBLG baa ka aada annaga waxaan hadda samaynay hay'adahana kala hadlaynay meesha u soconno in waxaanu ay contribute garayaan dhinaca horumarka inaan kaararkii ka dhigno
conditional ka dhigno aan dhiraano saab sameynaysa ha almiin qof gurigiisa iyo agaarkiisa sooniisa ha xaaqdo wuxuu horumarkii cagaarintii dhirtii ha sameeyo laakiin dadkii waxa laga dhigay marginalized waa dhulka la dhigay marka waxaan ku jirnaa siyaasad ahaan waxaan hiigsanaynaa inaan dadkan lacagtan dhinaca horumarka looga faa'iideysto ayagoo dadkii la siinayo waa format aan u baahanahay runtii inaan marno oo maaragtay isla qorsheyno guddiga horumarintaan sameynay oo aad iyo aad maaragtay aan rabnay inuu arrimaha horumarinta ilaa 6 isin baa ku jirta dadka aqoon-yahanada baa ku jira private sector waxa ku jira business groups baa ku jira ururada haweenka ku jira dhalinyarada ku jira media ku jira waxaan ugu talagalnay inay kuwan noqdaan kuwa maaragtay kaabaya qorshuhuna waxa weeye xataa canshuuraha caadiga ah oo qaadayno inaan qofka la canshuurin ilaa iyo horumarka uu bixiyo maaragtay lacagta horumarinta inuu wuxuu ka bixiyo mooyaan waxaan bilownay guryihii sidoo kale oo aan awal jirin 5400 guri baa noo diiwaan gashan 40,000 oo guri bayna gaarayaan lacagteena ku diiwaan galino 20,000 baa nooga baxday inaan guryaha diiwaan galino hadda canshuurtii baa ku socota asbuucii labaad way bixinayaan dadka canshuurtii laakiin wax ka soo doontay waaye oo ka qaato magaciisa way bilaabatay asbuucii labaad baa hadda socota gaari iyo waxba oo lukood gareemay marka guriyahana waan ka soo qaadnay dhinaca kicinta canshuuraha asbuucaana waxaan rabnay inaan soo saarno digreeto agaasimihii dakhliga fadhiya aan kor ugu qaadayno gaadiidka iyo dhulka iyo maaragtay waxyaabo aad u fadhiyo dhulka yaalay inaanu saddexdeeda maaragtay marka canshuur wax laga bedelayo aan ahayn taleefo waa in guddiga maamulku saddexda qof oo xogayaha ee gudoomiye xogeenka isla saxaan waxaan guddiga horumarinta rabnaa inuu qaado waa isla ogolaanay dadkii ma rabaan inay dalkina dhistaan shirkadaha ugu waaweyn ee dalkan jooga hal shilin ma ogola dawladda inay siiyaan lacagtina xataa iyadoo electronic ay samaysteen biyaha iyo korontada waxay nagu qaadatay ilaa 4 fadhi inaan la yeelano midood weli waa murmaysaa laakiin tanbiyuhu waa noo ogolaatay waxaa noo dheer shirkadaha kale deegaanada ka jira hal shilin ma rabaan xataa centerka magaalada inay dhixyaal qurux badan ka dhistaan oo iyagu ay leeyihiin oo magaalada qurxiyaan ma rabaan magaalooyin kale waa ka dhistaan shirkadaha halkaana waxay degaan guryo xun oo shadaabay degaan hadda u tagto waxay ku oranayaan la ruush qaada hal gaar ah ku gadna naga daashidada taas ku dhahayaan waddanka ayaa ku ganacsaday ayagana lacag haysta marka istiraatiijiyad baa nooga taala ayagana inaan maaragtay hawl ka qabsano oo aan maaragtay aan la qaadin مثلا golis oo kale ka soo qaad intee bishii ka qaadnaa 2,000 oo kale baa bishii laga qaaday degmada hoos ka qaadaa 1,200 meelaha iyaga la noqda ya koronto waxay la noqdaan yeeshahay 200 baa laga soo qaadaa bishii malaayiin dollar bayna soo xariista marka qorshaan nooga yaala ayadan inaan maartay insha Allah inaan qolyahaas aadno waxaan sameeyay guddiga horumarinta hawlahaas oo qaban doona korontada iyo biyaha iyo lacag ka qaadi doona dadka kale lacag ka qaadan doonaan qorshaha guud ee istiraatiijiyada maartay degmada 5 sano waxa noogu jirta horta buugi uu nagu filaan waaye GBLG-ga laga sameeyo 5 sano buugi yarka oo 5 sano qorsheynta uu nagu filaan waaye waxaan u baahanahay inaan sameeysano buug ka qaraweyn oo ilaa 20 sano meelaha gaaraya oo transformation plan ah wasaaradda arrimaha gudaha waxaan weydiisanay iyo hay'adaha qaarkood in 3 qof oo experts la siiyo si aan meesha transformation plan u sameeyno buuggaas maartay DDF kuna sanad walba wuxuu nooga soo refer garay oo soo qaato qorshaheedu waa ku jirnaa buugga DDF kale ku soo baxay validation-ku wuxuu dhacay shalayto ayaa la soo gabagabeeyay waxyaabaha priority-ga waxa noogu jirta water and sanitation-ka noogu jira oo drainage-ka iyo waxaas ay ku jiraan ayaa noogu jira master plan-ka noogu xiga dhulku dadku isku wada leeynaya meel miisanaya marka waxyaabahaas aan maartay iyadana aan rabnaa inaan aan focus ka saaro strategy saaro hadii alla idmo markii laga hadlo detailka canshuurta iyo waxyaabahan wax ka qabanay waxa kamid ah tagaasida dawladda hoose canshuur bay ku leedahay maca sector-iska oo sii guda galay moogta dhaweeye shirkad la yiraahdo tagaasida meeshan ka jirta wasaaradda maaliyadda waxay ku canshuurtaa gaarigaas meeshaas dhaweeye jooga private cars ay ku canshuurtaa taxi uma diiwaan gashada laakiin waa taxi siyaasadda ka dambaysa waxay tahay inaan dawladdii hoose lacag u doonan sababta annaga gaariga private ugu diiwaan gashan yahay lacag uma doonan karno taxi ma aadayna waxaad wadda hay'adihii dawladda inay kala shaqaynayaan oo aysan jirinin maartay coordination inkastoo annagu hadda wasaaradda maaliyadda iyo aan aad uga shaqeeyay inaan iyo gobolka iyo inaan isku xiraan
ومجلسيو عن واحد عن هذا وشقينا هذا واحد مدة إن نظام هان وحقل بينهم مركا أنا وحان دوي أدي وحنا يومك أجل فورنا تكسمو قد ها وزارة المالية وحرتها كوا عشورته داتا النسي واحد تكساس أفر بقى تكسوها داتا كسيمة وحنا نسينا أدي وابكنا وحر دولة وسلاي كسوق عطانا وقلانشة عشورتنا بحيان هاو فرن أبك هديك الحفيز كوف فران مي هذا ما يشكو قاع سدا ضد دير كذب بحين وأديك عم بحنا أديك ويا هذا وحين عمر شيء كذب أديك ويا عم بحنا هذا أبك توحرنا وأديك وين كل شيء قيسنا فحكون خصبنا إن المركز نرهنا ويا كل شيء قيسنا إن أبك كحر تمرك يلحب لوجه كتبه محايق قاعدة نسا يا هير كان سأسلق جارني يعني واحد أركيسا إن شركتها أي ودن كم وجارنا مر عندنا مايا هذا كاحرنا هذا لفت هذا كاحرنا وجار لكن هذا وحنا جوجنا سيانو دقائقنا عندنا ورأبكنا وحر وحي تشاتشان إنه ويديسو هذا تشاتش قاعدة نسا وسيرفس أنون أو قبنيس الكاسن مرينا مركا وحيابها سان ربينا كونتريبيوت كرايو وحكى التيم كاون دينا السلام عليكم